Bismillah. Halkan waxaan ku duubaynaa waa casharka 15aad ciwaankiisu yahay kala goynta dib loo dhisayo. Lesson 15 subtracting with a renaming. Macnaha laga wadana waa sharxi doonaa. Halkan waxaan ku soo qoray qoraal cadde fahm ah. Si sahlan ayaa loo kala goyn karaa lambar keligiisa iyo jajab isku dhafan. Qaabka loo dhisayana waa adigoo marka lambarka u qoraya nambarka keligiisa ayaa u qoraysaa sidii jajab isku dhafan ama mixed number. Taasina waxa ay kuu sahlaysaa inaad kala goyso labadii jajab. Markii aad u dhisto lambarkaaga jajab isku dhafan, waxaa imaan karta in sareeyaasha ay kala weynaadaan oo weliba ka jajabka weyn ee hore sareeyihiisu uu ka yaraado sareeyaha jajabka kale. Marka waxaa muhiim ah in aad sareeyaasha jajabka weyn la weyneeyo. oo see la weynanaya kor loo qaado. Qaabkuna waxaan ku arki doonaa tusaale. Kor baa loo qaadayaayo nambarkii horgalaha baa laga bixinayaa hal nambar. Nambarkaasaa hooseeyaha lala mid dhigayaa oo sida nambarka hooseeyahiisa ah oo kale ayaa laga dhigaya. Kaasaa kor loogu daraya. Marka qaabka sareeyaha kor loogu qaadayo waa ka bixinta lambarka horgalaha ah laga saaro hal nambar. Kadibna loo ekeysiinayo hooseeyihiisa jajabkaas. Markaasna lagu daraya sareeyaha. Intaa kadibna sidii caadiga ahayd ee kala goynta ahayd ayaa loo kala goynaya nambarka. Halkan waxaan ku samayn doonaa inta aanan u guurin tusaalayaasha ayaa waxaan ku samayn doonaa tusaale naga caawinaya arrinkaas. oo aan ahayn labadan tusaale hadda aan buugga ku samayn doono. Mathalan, haddii aan haysto 6 waxaan u qori karaa sida tan oo kale 5 hal loo qaybshay hal waa isla 6. Waxaan u sii qori karaa inaan idhaahdo 5 2 loo qaybshay 2 waa isla 6. oo kulligood haddaa fiirsatid sidaan samayn jirnay halkan hooseeyaha ah ayaa waxaan ku dhufanaynaa 5 labadana isku dhufanaynaa. Kadibna waxaan ku daraynaa kaa. Waxaana soo baxaysaa haddaa fiirsid waa 6 loo qaybshay 1. Halkan sidoo kale waa 2 ku dhufa 5 waa 10 2 ku dar waa 12 2 u qaybi waa 6. Sidii aad rabtid ka yeel. 5 7 loo qaybshay 7 waa dhihi karaa. Waa kulligood waa 6daas la mid yihiin kulligood saartu yeel. Haddaba qaabka horta aan ka hadlayno waa noocan inaad u dhisi karto kala goynta jajabkaaga marka aad 2 nambar kala goynayso. Haddii nambarna caadi u yahay nambarna uu yahay mixed number, waxaad samaynaysaa inaad sii dhisto. Qaabkaas waa qaabka aan rabnay inaan hadda wax ku dhisno. Waxaan gelaynaa tusaalaheena koowaad. Tusaalaheena koowaad wuxuuna leeyahay 14 ayaa waxaa laga goonayaa 3. Waxaa laga goonayaa 3 7 loo qaybshay 9. saasay noogu qoranta. Waxaan samaynaynaa marka inaynu marka hore bedelno oo aan ka dhigno
14 oon u qorno 13 9 loo qaybshay 9 maxaa 9ka u doortay sababta 9ka aan u doortay waa hooseeyahan dartiis hooseeyahan aan calaamadda gelinayo dartiis waay sababtoo ah hooseeyahayga waxaan rabaa inaan u ekaysiiyo jajabka kale hooseeyahaysa sababtaan u doortay waa hooseeyahaas aan seerka kala geliyey waxaan leeyahay marka kii kale sidiisaan usoo qorayaa minus 3 7 loo qaybshay 9 waa kala goonaya marka hadda markaan kala goonaya waa sidii shalay oo kale cashirkii shalay aan dhigaynay oo kale oo kan ka horreeya 14aad 13kana 3daan ka goonayaa oo waxaa isoo hareeya 10 labadaanna waan kala goonayaa oo waxaa isoo hareeya 2 loo qaybshay 9 jawaabteydii ugu dambaysayna halkaasi ku egta marka dhismahan hadda aan dhisayo oo aan rabo inaan u dhiso kala goynta number iyo mixed numberka ah qaabka kan kore ah aan tusaalaha in ku siinaya number walba waxaa loo qori karaa mixed number oo si sahlan loogu samayn karaa kala goyntooda waxaan ku xijinaynaa tusaale labaad ayaan ku xijinaynaa tusaalaheena labaad ee boggan aan ku diyaarinayno waa tusaalaha labaad ee beejkii hore waxaana la siiyey waa tusaalaha labaad waa example 2 waay oo beejkii hore ah waxaana la siiyey 19 2 loo qaybshay 5 waxaan ka goonaynaa 4 7 loo qaybshay 8 waxaan arkaa inaan horta hore intaan aanan dhaqaaqin aan fiirsho labadayda jajab 19 way ka weyntaa 4 waa sax 19 iyo 4 19 baa weyn laakiin markii aan fiirsho labadaydan fraction qaybtan fractionka oo 2 loo qaybshay 5 iyo 7 loo qaybshay ayamaa keebaa weyn waa marka labadooda inaan ogaado waa marka seen ku ogaan karaa baan ka hormarinaya intaan waxba samaynin waa in aan hubiyaa labadayda qaybta jajabkahay qaybta hore ee weyn inay ka weyn tahay qaybta hoostaada so marka waxaan fiirinayaa sidee baan u jeegaraynayaa waa inaan jeegarayaa 2 loo qaybshay 5 iyo 7 loo qaybshay 8 keebaa weyn labadooda rajadaydu waxa weeye 2 loo qaybshay 5 inay weyn tahay see ku garanayaa marka waxaan ku garanayaa isdhaafaan isugu dhufanaya ma ogi laakiin malahayga waxaan leeyahay kan baan waxaan ku dhufanayaa 8dan 2 ku dhufanaya 5tana waxaan ku dhufanayaa 7 markaan 8da 5ta ku dhufto wixii ii soo baxa halkaan dhigaya waa 16 5 ku dhufo 7na waa 35 haddaba waxaan leeyahay 35 way ka yartay 16 waxaan dhahayaa marka go'aankayga ku qaadanayaa oo halkaa aan ku dhigayaa in 2 loo qaybshay 5 ay ka yar tahay 7 loo qaybshay 8 arrinkaas inaan muujiyaa waa marka hore intaana dhaqaaqin
hadda marka waxaan rabaa sidee baan u dhisayaa qaabkeen u dhisayaa waxaan samaynayaa marka xisaabtaydii baan dib ugu noqonayaa marka waxaan leeyahay waxaan bedelayaa 19 ayaan bedelayaa oo waxaan ka dhigayaa 18 xabaddii aan ka saaray waxaan ka dhigayaa 5 baan u bedelayaa oo maxaan leeyahay 5 ku dar waa 5 baan ka dhigay 5tii baan waxaan ku darayaa 2 marka waxaan leeyahay 2 lagu daray 5 loo qaybshay 5 waan ka hadli doonaayo waxay noqonaysaa waa anigoo eri 18 2 loo qaybshay 5 lagu daray 5 loo qaybshay 5 xabaddii weeye haddaba hoosayaashu maadaama ay isku mid yihiin mid baan ka soo qaadanayaa 18 baan leeyahay waxaan isku darayaa sarreeyaasha waa 7 iyo 5 sidaasay ku timid 7 loo qaybshay 18 7 loo qaybshay 5 nambarka hoose waa sidiisii caadiga ahayd maxaa laga gooyey 4 7 loo qaybshay 8 hadda hawsha ii taala marka waxay noqonay inaan haysto 2 fraction oo noocaana oo aan rabo hooseyaashooda inaan mideeyo marka waxaan leeyahay marka 18 7 loo qaybshay 5 laga gooyey 4 loo qaybshay 8 waxaan samaynayaa marka hooseyaasha mideynaya marka maxay wadaagaan LCM-ka ay wadaagaan 4 5 iyo 8 waa labadooda la isku dhuftay waana 4 marka see yeelayaa marka labada dhinacba isweydaar baan isugu dhufanaya marka waxaan leeyahay 18 7 loo qaybshay 5 halkan 8 ku dhufo korna 8 ku dhufo tan hoosena sidoo kale laga jaray 4 7 lagu dhuftay 5 iyo 8 lagu dhuftay 5 halkaa waxaa iga soo baxaya hoostaanan ku qorayaa meesha iska yara ciriir noqotay 18 8 markaan ku dhufto 18 baan qoranayaa halkan waxaa soo baxay 56 loo qaybshay 4 laga jaray 4 laga jaray 4 35 loo qaybshay 4 hadda hooseyaasheedu waa mid jawaabta ii soo baxaysa marka maxay noqonaysaa jawaabta ii soo baxaysa waxay noqonaysaa labadan intaan kala gooyo inay noqdaan 18 4 ka jar waa 14 waxaa kala goysaa labadan kala gooy labadaasna waa kala goonaynaa maxaa noo soo haraya markaan ka goyno waa 1 iyo 26 waxaa noo soo haray 1 iyo 20 loo qaybshay 4 waana jawaabteena ugu dambeyso haddaba qaabkaas ayaan waxaan u sameynaynaa inaynu uga shaqeyno kala goynta jajabka kan sidan oo kale ah waxaan ku daraynaa
tusaalayaal kale aan rajaynayna in aan samayno. waxaana la yiri su-aasha koowaad, Judy opens a 6.5 pound bag of nuts. She uses 7 or 8 pounds for cookies. How many pounds of nuts does she have left? Judy waxay furtay bag ay ku jiraan loos, kaasoo ay ka isticmaashay 7 or 8 pound oo kuuka ay ku dartay. kuukina waa sida baal yaroo keeg ah oo la cuno. meeqa boundi baa u hartay? marka waxaan nala weydiiyey waa 6.5 laga gooyey 7 over 8. meesha markaan samaynayno marka waxaa la rabaa marka horeba inaynu hubinno in fractionka aad haysato hoos iyo labadan baa waxaan samaynaynaa inaan horta hore raadino LCM-ka. LCM-ka 2 iyo 8 waa 8. 2 qaybi waa 1 iyo 4 marka waa 8. marka inaan hoose iyo 8 ka dhignaa. waxaan 6 hal loo qaybshay 2 4 baan halkan ku dhufanaynaa, kan 4 ku dhufanaynaa. 7 loo qaybshay 8 sideeda ahaanaysa. halkan waxaa nooga soo baxaya 6 4 loo qaybshay 8 laga jaray 7 loo qaybshay 8. cilad baa marka muuqata. marka cilada muuqata waxay tahay hadda 4 iyo 7 4 bayr ma kala goon karno. marka see u weyneynayna marka waa inaan 6dii bedelnaa oo 6dii aan ka dhignaa 5. halkiina waa inaan ka dhignaa 8 sidii hadaytaan samaynayna. 8dii halkii aan ka saarna halkan wuxuu noqonayaa 8 maadaama hooseeyuhu 8 yahay. waxaan ku daraynaa 4tii kore, 4 lagu daray 8. waxaan u qaybinaynaa 8dii hooseeyaha ahayd. waxaan ka jaraynaa 7 loo qaybshay 8. xisaabta saasaan u dhisnaa. maxaa noo soo baxay marka? waxaa noo soo haray 5 12 loo qaybshay 8 laga jaray 7 loo qaybshay 8. hadda waan kala goon karnaa marka maadaama aan kor u qaadnay sareeyaha jajabka koowaad. waxaan leenahay 5 sideeda noo ogaanaysa because horgalaka jajabka kale la socdo oo aan ka goonaynaa ma jirto. halka waxaa nooga soo haraya 5 7 ka jar waa 5 kale. 12 7 markaan ka jirna waa 5. 8dana sideeda noo ahaanaysaa. jawaabteennina halkaasi ku egta. marka casharkan waxaan ku qaadanaynaa oo muhiim ah sida sareeyaha hore haddii uu ka yaraado sideebaa loo weyneyn karaa. haddaayato inta aanan samaynin way fiicneed inaan samayn maadaama aan haysanay 1 iyo 2 dhinacna haysanay 7 oo jajabyada aan haysanay ahayn. sidii hadaayata ayaan samayn karnaa. 8 waxaan ku dhufanaynaa 1, 2dana waxaan ku dhufanaynaa 7. waxaana noo soo haraya 8 oo halkan nooga soo baxaysa 1 lagu dhuftay 8 oo dhinacaan imaanaysa. dhinaca kalena waxaa tagaya 14.
haddaba waxaa inoo soo baxday 8 inay ka yartay 14 marka waxaan ognahay jajabkani inuu weyneyn u baahnaan doono mid kalena waxa weeye waa dhinaca kale markii aad hooseeyaha sintay waxaa kuu soo baxay 4 loo qaybshay 8 oo hadayta hoosta aan ka xariiqin oo tan ah iyo 7 loo qaybshay 8 oo dhankan ahayd labadaba markaa fiirisid haddaad dadab isugu dhufatid midna waa 32 midna waa 56 waa dhankan waxaa yar 32 waa sidaas lamid ah waa 32 ay dhinacna noqonaysaa oo ka yar 56 marka mar kastaba jajabkaana kor u soo qaado oo u weynayso waad ku khasbanaanaysaa si aad u kala goysa haddii kala goonta jajabkii ah ma ku masaabixiisa kala goontooda su'aalaha casharkan aad la kulmi doontaan waxay u baahan yihiin noocyadan waxaan u baahan yihiin inaad si qotal u fiirisaan arrimahaasaan ka soo sheekeeyey ee leh inaad marka hore hubiso in qaybta jajabka ah ee aan ahayn nambarka horgalaha ah in kan hore ee nambarka hore weyn uu wato jajabka uu wato mar walba inaad hubiso inuu ka weyn yahay jajabka kale sidaas marka waa inaad dariiqa kan martaa si aad xisaabtii u dhisto markaana aad u kala goyso homeworka labada saddexba way u baahan yihiin inaad ka shaqaysaan ood fiirisaan oo kulligood aad wada dhammaysaan